أتاني دي بدانتادا وما حيس وابيني أتاني دي بدانتادا وما حيس وابيني ما أنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانت بخير تقاليجا كحرا كنالك قلك شو سولو صاحب بالميل بدون التأكيد تعالى لذا أدي كده ونسين كنا قاعدات كل عصب طيب الله سبسكرايب لايك تشير كومنتيجا أنت بقى نوصار أيامان هرج بايسكير جرا ساسوعد كيك إسكو بتري وحن دوني أنا كهلا قصة هيستن ummadii oo dhan ka ilmeysisay heestu waati waa heesta Amira soo qaaday heesta waxa loo sameeyay boqorada istaalka iyo haykal ayuu abwaanku heestan uga sheekay sida ay tahay qisadu kadib heestan ayaa jawaabtiisa falcelintiisii noqotay haye أتاني دي بدانتادا وما حيس وابيني ما أنا قف بوسكاكا إني كان يجيب عشان ما أنا نوفو غيوبي ولك الخير تادا heestan si wada ognahay bulshada dhammaanteed way ka wada oohisay amba way ka wada ilmeysisay heestan saameyn gaar ah ayay dadka ku yeelatay heestan waxay isku soo celisay kumanaan kun oo qof amba oo kala tagay amba waxaan ku leeyahay waqtigii waayuhu kala kaxay ayaa heestan daraado dib ugu midoobay heesta waxa ku farayareystay waa Aamin Samadoon sidoo kale heesta waxa la xan ka saaray waa Khalid Kaamil codkiisa macaan ee bulshada dhanka ilmeysiisayna waxa leh Amira heestan saameyn gaar ah ay bulshada ku leedahay heestan si dareen la ayaa loo qaaday heestan iyadoo dadku markoodii horeba yacni ay ka yaaban yihiin sidan u socota amba systemkan ay dadka uga ooysiinayso amba uga ilmeysiinayso ayaaba waxaaba soo galayba meesha laba lamaane oo aad iyo aad dadku ay u jeclaayeen oo waxa ku leeyahay bulshaduna xoog ay isku jeclaayeen waa haykal iyo waliba boqorada istaalka boqorada iyo haykal sidoo ognahay بريهن لسكما أرك أم بوي كلا تجين بل أنا مقال هيكل وصاد وانا كير رفن. أتاني دي بدانتادا وما حيس وابيني ما أنا قف بوسكاكا إني كان يجيب عشان ما أنا نوفو غيوبي ولك الخير تادا كلي قف والبو طرير له قف والبو قيمها جعيلك وحكا قرانيا هيستاني ويتابطي أمبو يساميسي sidoo kale mid aan jacayl bagaranayn xitaa amba mid aan nolosha waxba ka garanayn ay heestan qalbigiisa qoysay amba niyadiisa dareen jacayl gelisay heestan waxay noqotay hees aan hadal iyo hubin karin hees yacni marka hore waxa la oran jiray waxaan yaala dhakhtarka Umar Ule balse laakiin xaaladdu hadda way isbedeshiyo waxay noqotay fadlan iga soo gaara waxaan yaala dhakhtarka Aamin Yare heestan u ku nuxnuxsaday mid kale heestan anugu waan gartay heestan in qasab dhabo waagtay way heestan hees man awaal ah marnaba uma eka waa hees يعني أتكرني سيد هستن إنه وحكو جران وهيس قيان وهي هستن بقرط استركي هايكل وطد استجعل سيدو كل واحد نركين نعيمة شوكر أو يدنو كويتي هايكل كده أويسة أولا يعني لو ذا قف استجعل مرون بيسكسو نقضان وين أركتونا هايكل يا بقرط استركا أو مرون وذا شوكا أمبا سيدو دي هوريسكوا وحا آد loogu xiisay waa qosolkoodii iyo wada jirkoodii bulshadu waxay u baahan tahay lamaanihii ay jeclaayeen dhaqanka wanaagsanaa xishoodka badnaa dadku ay ku dayin jireen bulshadu ay ku dayin jirtay lamaanihii ka duwanaa boqolkiiba lamaanayaasha isticmaala social media lamaane akhlaaq leh lamaane qurux badan lamaane dhaqan wanaagsan lamaane isjecel lamaane gudbinaya message aad wanaagsan amba aad qurux badan ay hayeen balse laakiin waqtigu miyuu kula tashanaya waqtigu kulama tashanayo anaguna waxaan jecelnahay
labadaa qof wada jirkooga horta wallaahi anu ka shaqsiyaan aad baan u jeclahay. Haykal waan taageeraa, waa wiil yar oo yacni wiilasha sanadkan jooga ama wiilasha sanadkan jira yacni ka admood inuu ka maskax weyn yahay. waa qunyar socod boqorada isteelkana xishoodkeedii wanaaggeedii dhaqankeedii wanaagsanaa qof walbo baraha bulshada ku jira uu uga markhaati kacaya. waa gabadh lagu soo barbaariyey farxad, lagu soo barbaariyey dhaqan wanaagsan, lagu soo barbaariyey edeb iyo xishood aad iyo aad u qurux badan. marka waan ka ammaanayaa halkan labadoodaba. waxaan leeyahay weli maan arag lamaane in ka fiican idinka, balse laakiin waqtiga ayaan waqtigiina intaa ku ekaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu isku kiin soo celiyo. ma adkaysan karno yacni sidan ma adkaysan karno ya maanta kaliya inta laga go'do ilaahay ogyahay. marka lamaanaha ugu da'da yaraa bay ahaayeen, lamaanaha ugu quruxda badanna way ahaayeen. daawade haddaba adiga heestan ma ku saamaysay? heestan waxyaabo badan aad ku soo xasuusatay miyay jirtaa? qof egasa ood ka tagtay heestan dib kugu soo celisay. heestan saameyn badan oo gaar ah ayay ku leedahay bulshada, because lamaanaha waxa caadadooda amba dhaqankooga waxa ah inay mararka qaar ay isqabtaan, yacni qaarkoodna ayba ku kala tagaanba ay ku kala dhaqaaqaan. balse laakiin heestan dad badan bay isku soo celisaan. horena in ku sheegay dad badan ay isku soo celisay. war heestan xilli loo baahan yahay buu aamin yara soo saaray. heestan xilli loo baahan yahay buu Haykal hadlay. Haykal markaa maqalnay afkaartiisa amba wanaagga yacni ku jira weli, balse laakiin boqorada isteelka muxuu noqon doonaa talo? boqorada isteelka muxuu noqon doonaa? waxaan rajaynayaa iyadana war wanaagsan inay kasoo bixi doonto, inay yacni kandhigiisoo kale ay kasoo bixi doono. markaa saaxiibayaal aad iyo aad bad mahadsantihiin. run ahaantii dareenka heestan xoog buu ii qaatay. waa heesaan u qushuucay, waa heesaan la dhacay, waa hees qalbigayga taabatay, waa hees qalbiyada bulshada dhan taabatay, yacni waa hees annada leefala ya. heestan way tagto way tallaabsatay. waxay geli doontaa heesaha sanadkan ugu qiimaha badnaa ay noqon doontaa. heestan qof aanay ka oohaysin, yacni qofka qalbigiisu qalbi adeeg yahay. haddaana ka oohaysin kii qalbiga adkaabay qalbigiisa qoysay. marka waa sababtaa u leeyahay waa hees qoyan. markaa saaxiibayaal ayaamaha iskeena xamsin hergabyo waxbaa iska jiray. soo duceeya aad iyo aadna mahadsantihiin. muuqaal kale kale aan ku kulmi doono saaxiibayaal insha allah bismillaahi kariim. sidaas iyo mac salaam.